جعلك أركتها كبشة جعلك لبعضنا وحال هذا مرحلة الحب الرومانسي وجعلك محنقول هذا تشيكن إيه تشابسي قاوة جعلك كلا تصدحنا ومرحلة الحب القائم على المعاشرة وجعلك كتاغا بعد الزواج aan marka kala qaadno mid walba qiimihiisa aan siino jaceelka inuu guurka ka hor yimaado waxaan daliil ugu soo qaadanayaa aayaat min alkitaab axaadiith min as-sunna iyo tajruba aniga igu dhacday shakhsiyana aayaat min alkitaab haddaan u laabano suuratu yuusuf oo taqaanaan aayadda 30aad ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku leeyahay markuu uu ka hadlayo haweeneydii soo korsatay nabi yuusuf calayhi salaam markuu ka hadlayo ilaahay wuxuu leeyahay waqaala niswatun fi lmadiinati imra'atu alcaziizi turaawidu fataaha can nafsihi qad shagafahaa xubbaa ereyga shaqaf af carabiga waa nooc ugu dambeeya jaceylka ee dhuuxa fariista waay ee dhuuxa xargagiya waxaa ka dambeeya hal erey bes oo asagana la yiraahdo sacaf waa mid dhimasho waay kaas jaceelka magacyadiisa waxaa ka mid ah marka shaqafkaasa ka mid ah aan isweydiino marka nabi yuusuf haweeneyda marka ay jeclaanaysay gogol lama aysan wadaagin biil kama aysan arkin ballama ma aysan dhexmarin keliya waxay aragtay aragtida koowaad iyo meesha sida ugu soo barbaaray iyo dhaqankiisa iyo habwanaagiisa markay aragtay meesha waxaa ka dhashay marka jaceyl ah inay jaceyl u qaado ay jeclaan lahayd inay la guri gasho amaba ay jeclaan lahayd inay maxaan ku yiraahdo jirkeedii u bandhigto taas meesha marka waxaan ka qaadanaynaa aragtida koowaadba in jaceylku uu ka dhasho qodobka labaad xadiidkii muqiirata ibnu shucba radiyallahu ta'ala anhu ku sugnaa sunanka imaamu axmed iyo tirmidi ibn maaja iyo bayhaqi silsiladiisuna ay tahay xasanka ah muqiirata ibnu shucba nabiga ayuu u yimid wuxuu ku yiri nabi allow waxaan rabay inaan guursado gabar maxaan ku yiraahdaa maxaa ila tali nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri ma soo fiirisay oo ma iska soo eegtay markaasuu yiri maya nabiga calayhi salaatu wasalaam amaruu ku sii wuxuu yiri orod oo iska soo fiiri idhab fandur ilayha bal u fiirso maxaa laga dheefaa marka aragtidaas maxaa laga dheefaa aragtidaas inuu jaceyl ka dhalan nabiga sheegay calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri fa innahu ahra an yu'dama baynakuma ahra waa riwaayad kale رواية كلاتنا وحيلها فإنه أجدر أن يؤدم بينكما جعل إنه دحدينا كدش عيال يا باي أرضو إسكسو فيري نبي عليه الصلاة والسلام يا قري أركتذو كواد بإنه جعل كدشو وأي وحدا أركن ما بخالته تصالي هدي هدا كبسوقات حاس كاغا كسوقات وأجعش أقولي وكوجوكتو leerku caaw idin ka dansan yahay cunno macaan lagu soo kariyo meesha lagu soo dhigo cunnadaas inaad aragtid mooyaane caloosha ma dhaadhicinaysid maxay shakiyaad ka qabta waxay tahay ma taqaanid waxa leedahay naaheedhe naatooshka ii keen naafaynuusta ii keen leerka hadduusan jirin maxaa yeelay cunnadaasi niyadaada kuma kalsoono niyadaada waxay ku kalsoon tahay marka aad aragtid waxay tahay idan qofka marka uu arko qofta waxa ay tahay ama aragtida koowaad ha ahaato ama aragtiyooyinka kaleeta aragtada xiga ha ahaatee markaas ayuu jaceylku u dhashaa waxaa kaleeto xadiis kaleeta sahl ibn sacd oo saxiixeynka ku yaalo bukhaari iyo muslima nabiga calayhi salaatu wasalaam haweeney ayaa isu soo dul taagtay nabiga calayhi salaatu wasalaam waxay ku tiri jiitu liyahaba laka nafsi nafteedii inaan kuu hibeeyey ayaan u imaaday nabiga calayhi salaatu wasalaam wuu fiiriyey wuu eegay nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu eegay way qancin weysay nabigu waa uu ka jeesta marka taas marka meesha waxaan ka qaadanaynaa aragtida ah in nabiga calayhi salaatu wasalaam aysan qancinin aragtida aysan ku qancinin saxaabi kale oo jaliil ayaa ku qanco oo yiri nabi allow ii guuri anaa u baahanay isla markii soo booday waa xadiiskii aad taqaaneen oo ah maxaad haysaa orodo waxaa soo raad markii la waayana aayaadka quraan kitaabka quraanka lagu soo gabagabay qisada markaan ku soo koobay teeda shakhsiya aniga da'da hadda idiin muuqato 20 sano markii laga gooyo intaan ku jiray jaceyl baan soo maray waa la soo raftay shaati ayaan waxaan u qaatay sarwaal oo kale aan u gashay wixii way dhici waayeen gabadhii aan isjeclaanay oo aan iscalmanay waa aan waayey
nasiib darro Soomaalidu way iscuuladaysaa aniga agoonnimo la igu diiday ala kulli xal gabadhii waa calfan waay mid kaloonan ani ayadaba aanan isarag hal habeen waxaan ka ahayn hal habeen aan la fariis aan la sheekaystay dadnimadeeda dhan halkaas habeen aan ku soo gabagabay tiyo ilaahay wuxuu keenay laba dara mid doora in la yiri oo far habaar ama far jecel waxaan irma iga deydaanin waxa la waa inaad guursataa hooyo dhaxda la gashay waa la shukul waxa la anaga gurinaagay dhistay iyadoo baad dumin doontaan waa iska yeelay dhacday ee way duntay aqd min az-zaman macna one decade ama 10 sano ayaan ka bacdi aan fariirkii gurigaas iga burburay aan ka qaaday aan hoodka la galay Nairobi ka dhacay soo wareeray soo laabtay ka bacdi waxbarasho bilaabay waxa dhacday marka xilliga Etoobiyaanka in magaalada Muqdisho ay isku xirkeedii uu socon waayo waxaan u cararnay marka goboladaas ayaan shaqo u raasanay magaaladii markaan u baxay gabar oo ardaydeeda dukaankeeda aan imaaday waxaan arkay gabar midabka Ilaahay subhanahu wa ta'ala horta u dhigay markii kale waxaan raacaw cashada waan ku jiraaye ee cashada naftirkees ku kaydar way muusoota marka dhoola cadeyntii ani waabi gashay dalaq ana runtii xanuunsan marka dam Ilaahan weydiistay waxaan ir Ilaahow midaas laabtayda dhaxdegta haday jirta ee keen nasiib wanaag Ilaahay wuxuu calfay galabkii xigaba ayadoo waxbarasho doona bareefadka raadinaysa qolada dumarkan wax u dhiga raadinaysa waaba tanaaba jug war ileen tanoo kaleete meeshii marka magaceedii aan sajilay indho shareer la'aan ahayd magaceedii aan sajilay magaceed markaan diiwaan gelay waxbarashada alifka aan u bilaabay baata jaadaan u bilaabay galabka labaad markay imaatay indho shareer ay wataa baqab anigu u tunnad waa u biirsanad ya waabis marka muddo ka bacdi waxaan isku dayay marka risaalada ayada aan u wado muddo ka bacdi waxaan isku dayay risaalada ayada aan u wado hatta oo baata jaalle waliba aanan u dhamaanin gabdho kaleeto oo baata jaada dhameeyo isku xirka maray inaan 10 dhan oo jeceela aan 10 ahaan u baxsho waxaan iri qalbi quuseeyo si u qaadan baad qaaliye qancidii tahay ruux baaba oo raaxa beelay bay raaqiye raxmadii tahay indho oo mano aragsan baad idalay aragtidii tahay dhagadhow hana oo dhinac u badan baad dhudiye dhugtii tahay mi boxing kartaa mise waan baroortaa boodhari sidiisii bata laygu ridaadaan iri marka Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu qadaray gabadhii inaan calaf u yeesho oo aan guursado maanta magaceeda waan ku faanaa ayadoo waliba dhameystiran Farxiyo Maxamed Siyaad warsame xunduwe waana maasantii